toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa sare u kac ku yimid xiisadda la xiriirta isku haysiga buuxinta labaad ee biyo-xireenka ay dhisanayso dowladda Itoobiya. waxaa burburay oo aan hadda socon wada hadalladii ay lahaayeen Masar, Itoobiya iyo Suudaan. waxaa muuqata xulufaysi cusub oo ku wajahan xaaladda biyo-xireenkan. si weyn ayayna isku beddelayaan wararka iyo dhacdooyinka laga tabinayo xaaladda biyo-xireenka ay Itoobiya dhisatay ee ay ku haystaan Masar iyo Suudaan. Addis Ababa waxa ay toddobaadkan shaacisay inaysan cidna magan uga noqon doonin buuxinta biyo-xireenkeeda. waxa ay tilmaantay inay hadda qabanayso wejiga labaad ee biyaha. waxayna tilmaantay inuu yahay muhiimad weyn oo ay leeyihiin dadka Itoobiyaanka ah. waa tallaabo walwalgelinaysa dalalka biyahan la wadaagay Itoobiya, Suudaan iyo Masar. waxa ay ciyaarayaan dadaal xoog leh oo ku aadan in gebi ahaanba wejiga labaad la joojiyo, is-afgarad la gaaro, taasna ay tahay dhabbaha rasmiga ee loo wajahaya xaaladda biyo-xireenkan. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo dhowaan la hadlayay baarlamaanka dalkiisa waxa uu muujiyey sida ay uga go'an tahay inaan cidna hor istaagi karin xaqa ay dadkiisu u leeyihiin in ay faa'iido ka helaan biyo-xireenka ay ku kacday balaayiinta dollar. waxaana uu sheegay in isku tashiga shacabka Itoobiya uu sababay in la dhiso biyo-xireenkan oo hadda markii labaad la buuxinayo. waxa uu hoosta ka xariiqay inaysan Addis Ababa marna gorgortan ka geli doonin arrinta ku saabsan biyo-xireenka. xiisadda ayaa sii kordhaysa. Masar waxa ay dadaal dheer gelisay sida ay reer galbeedka iyo midowga Yurub u yeelan lahaayeen saamayn ku wajahan wada hadallada oo ay gacan saddexaad dhexda u imaan lahayd, laakiin way guuldarraysteen dhammaan dadaalladaasi markii ay Addis Ababa sheegtay inaysan diyaar u ahayn inay gorgortan ka gasho buuxinta wejiga labaad. waa Julaay sanadkan, waana xilli kale oo xasaasi ah. Qaahiro waxay isku aragtaa inay doonayso in dhammaanba la joojiyo biyo-xireenkan buuxintiisa labaad. waxayna doonaysaa in laga wada hadlo sida lagu qaybsanayo, lagu buuxinayo, iyo tamarta ka imaanaysa habka loo adeegsanayaba. madaxweynaha Masar Cabdifataah al-Siisi waxa uu ku hanjabay 2 maalin ka hor in dowladdiisu aysan ka tanaasuli doonin dhibic biyaha oo ay leeyihiin shacabka Masar. waxaa ka sii horreeyay inay Qaahiro caddaysay inay durba bilowday biyo la'aan, taasoo ay sheegtay inay tahay arrinta qabashada ee biyaha Itoobiya. waxayna Masar sheegtay in tallaabadaas ay muujinayso gorgortanku inuu iska dhammaado, marxaladda rasmigana loo gudbo. Itoobiya waxay doonaysaa inay qabato wejiga labaad ee buuxinta biyo-xireenkeeda. waxay dadaal badan gelinaysaa sidii meel mar ay uga dhigi lahayd damaceeda, laakiin waxay la kulmaysaa caqabado badan. dhammaan duulimaadka diyaaradeed ayaa laga joojiyey hawada gobolka uu ku yaalla biyo-xireenkan ee dalka Itoobiya. waxay Addis Ababa ku sifaysay tallaabadaasi inay tahay mid military, waxaana la geeyey aagaga biyo-xireenka dhammaan qalabka basaasidda ama loo yaqaano raadaarka ee arka diyaaradaha kala duwan. labada ciidan ee Suudaan iyo Itoobiya muddooyinkii u dambeeyay waxaa ka dhag taagan xiisad colaadeed oo ka jirta xuduudda ay isku hayaan. waxay Khartoum gudaha u gashay gudaha Itoobiya, inkastoo uu dhowaan sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inaysan marnaba dagaalka Suudaan doonayn oo markasta dadaal nabdeed ay ku xalinayaan tabashada labada dhinac. haddana waxaa muuqata saamaynta military ee Masar ee xilligan ay ku leedahay arrinta labada dal. waddamada Sacuudiga, Bahrain, Cumaan iyo Yemen waxa ay garab iyo gaashaan inay u yihiin sheegeen dalka Masar iyo Suudaan oo ay sheegeen inay difaaci doonaan danaha biyahooda. laakiin isweydiintu waa xaaladda cusub ee gobolku noocee ayay noqon doontaa. madaxweynaha Masaaridu waxa uu sheegay in gobolka amnigiisu halis uu ku sii socdo. Itoobiyana waxa ay sheegtay inaysan gorgortan ka geli doonin. Suudaan ciidankeedu dhulku waxa ay ku jiraan qayb ka mid ah dhulweynaha Itoobiya. waddamada Carabeed qaybtood waxa ay taageerayaan Masar iyo Khartoum. waxaa si weyn indhaha loogu hayaa waddamada bariga Afrika ku yaalla oo Soomaaliya iyo Djibouti ay ka mid yihiin. iyay taageeri doonaan marka ay timaado xiisadda ka dhex taagan Masar iyo Suudaan oo ah dalal Carabeed. Soomaaliya iyo Djibouti ay ku wada jiraan jaamacadda Carabta iyo ururka Islaamka, iyo Itoobiya oo xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyo Muqdisho iyo Djibouti. waxaana si weyn indhaha loogu hayaa sida Ismaaciil Cumar Geelle iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay xaaladdan cusub uga dhuuntaan ama ugu yaraan ay u siyaasadeeyaan in labada dhinacba ay isku hayaan. Soomaaliya iyo Masar
waxa u muuqda xiriirkoodu inuu soo hagaagayo ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay taagnaa masaaridu waxa ay qaabileen danjiraha cusub ee Soomaaliya u jooga Qaahira wafuud kala duwan ayay u dirtay Muqdisho ujeedka ugu weynna waxa uu ahaa arrinta biyo xireenka iyo xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga hadda waxa muuqda ifafaalo weyn oo muujinaya soo dhawaansho Turkiga iyo Masar ah waana marxalad kale oo aanu dib u eegi doono warbixinaheena soo wajahan